waxay ahayd da'dayda 40 jir kaliya inaan bilaabo inaan ogaado waxaan rabo inaan sameeyo. Weligay noloshayda kuma fikirin inaan ganacsade noqon doono. Weligayga ma ka fikirin inaan noqdo macallin, laakiin waan noqday. Weligayga kamaan fikirin waxaan rabo inaan noqdo booliisiye, waa ii soo diiday. Qaladaadka ugu badan laga fikiro ma shaqaynayso. Ha isku dayin inaad noqoto mid khatar ah. Isku day inaad noqoto midka ugu koowaad, kan ugu koow ah oo wax bedelayo. Noqo kan ugu horeeyo oo qaado tartanka. Noqo kan ugu horeeyo oo ka adkaada dhibka. Waxaad noqon kartaa kan ugu fiican, laakiin ogow waxaa jira hal holyaal oo keliya olombikada. Waxaan u malaynayaa inaan nasiib leenahay si aan had iyo jeer isku dayo waxyaabo cusub. Weligaa ha isdhiibin. Aaminsanaa inaad tahay qof gaar ah, sababtoo ah qof walba waa qof gaar ah. Mar walba taas waa furaha. Dunidan maanta waxaa ka buuxa caqabada. Fursad 2000 sano ka hor way ka buuxeen. Waxaan hubaa in 2000 sano kadib ay had iyo jeer jiri doonaan waxyaalo badan, iyo fursad ay mar walba jiri doonto. Waxay ku xiran tahay sida aad u eegto. Qof u arko caqabadaha haysto fursad. Dhalinyaradu waxay yiraahdaan ma jiraan fursado. In badan ayaan isbuuxiyay markaan maqlay taas. Maxaa yeelay waxaan mooday in Bill Gates ay ka faa'iidaysteen fursad kasta, iyo Microsoft, Steve Jobs, shaqooyinka dadkan oo dhan halkaas ayaga ayaa qaateen ayaan isdhahay. Laakiin waxaan filayaa in fursad had iyo jeer ku jirto meel walbo, iyo sida aad u xallin karto dhibaatooyinka. Markasta oo caqabadaha aad xalliso fursadaha badan ee aad haysataa. Waxaan filayaa in noloshu tahay laba safar. Waxaad u timid adduunkan inaad ku raaxaysato si aad u faraxsanaato oo aad caafimaad ku yeelato. Maalinta aad ka tagto adduunkan oo aad tiraahdo waan faraxsanahay iyo noloshayda, aad baan caafimaad u qabaa noloshayda, waayo haddii aan caafimaad qabin weligaa ma faraxsanaan doontid. Waxaan aaminsanahay in farxaddu iyo caafimaadku ay yihiin waxyaabaha ugu oo aadamuhu mar walba raadiyo. Waxaan filayaa in 30 sano ee soo socda cilmiga tiknoolajiyada awood wax badan iska bedeli doono. Dadku waxay noolaan doonaan waqti dheer. Cilmi dheeraanshada micnaheedu ma aha caafimaad badan. Marka haddii aadan caafimaad qabin, sidee u nooshahay? Haddii aadan caafimaad qabin, maxaad u nooshahay?